magacaygu waa Basiir. Waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo su'aal muhiim ah inaan ku weydiiyo baan doonayaa. Su'aashaas waxay tahay waxaad ka soo qaadaa adigoo haysta goob shaqo oo just small business ah. Goobtaas shaqo ee maxaa la yiraahdaa ganacsiga yar ama small business ka waxa ka shaqeeya ladaasay 30 qof baa ka shaqeeya. Waxaana tahay mareeyihii goobta hogaaminteeda iyo maamulkeeda iska lahaa. Mas'uuliyaduna adeeg ku saaranta inaad dadka iyo goobtaba ay noqoto goob shaqeynaysa productive ah, shaqaalaheedu ayaguna ku qanacsan yihiin. Haddaba su'aasheedu waa tan. Dadka qayb shaqaalaha meesha jooga ee teamka ahi qayb ka mid ah aqoontooda marka laga hadlayo waa aragtinimada iyo xirfadda waa eber. Qayb kale in yar oo aqoon bay leeyihiin laakiin waa dad wax yar oo skills in yar oo waa aragtinimada maxaa la yiraahdaa fresh isku mar kalsoona motivation-kooda iyo daacadnimadoodu sidii la rabay maaha. Team kale oo saddexaad bay iyaguna jira aqoontii way leeyihiin waa aragtinimadii way leeyihiin laakiin commitment-kii iyo motivation-kii ay shaqadu uga baahnayd inay sideeda u qabtaan iyana meesha ma taalo. Koox afraad kooxdani waxa weeyaan waa highly motivated commitment-koodu wuu sareeyaa aqoontooda looga baahan yahay shaqada hadday tahay skills-kii experience-kii meesha way taalaan. Afarta kooxood baad maareeye u tahay hogaamiyahooda tahay. Waxaa la doonayaa afarta kooxood ee goobta shaqada joogada inaanad ergin laakiin aad ka dhigto koox walba halkii looga baahnaa aad keento. Maxaad samayn lahayd? Sidee baad u hogaamin lahayd? Haddii aad iska soo qaado qofkii hogaamiyaha ahaa ama